runtii saameyn badan ayuu yeeshay cudurkan aad adduunka dhan looga hadalhayo ee coronavirus. dhaqaalaha dunida oo dhan ayuu saameyn ku yeeshay cudurka safmarka ee COVID-19. saameynta dhaqaale ee dal walbaahina waxa ay ku xiran tahay heerka faafidda uu leeyahay cudurka coronavirus-ka. marka la eego gobolada dalka Cadaado waxa ay ka mid tahay magaalooyinka uu ka soo yeeray dhawaaqa cabsida baan ee dunida mar qura ka yeeray COVID-19. sanadiyadii dambe Cadaado oo la daalaa-dhacaysa qaadasho la'aanta lacagta shilinka Soomaaliga waxa iminka wajahaysa dhaqaale yari baahsan waxaana suuq yari baan laga dareemayaa goobaha ganacsiga. qaar ka mid ah ganacsatada ka howlgala gudaha magaalada Cadaado oo la hadlay Shabeelle TV ayaa ka warbixiyay heerka uu maray dhaqdhaqaaqa ganacsiga. magacaygu waa Farxaan Cali Xasan ku nool magaalada Cadaado xarunta baarlamaanka Galmudug ka mid ah ganacsatada deegaanka. runtii saameyn badan ayuu yeeshay cudurkan aad adduunka dhan looga hadalhayo ee coronavirus. ganacsiga saameyn badan uu ku yeeshay oo dabcan maadaama adduunka dhammaan uu kala xirxirmay Soomaaliya gudaheedii ay kala xirxirmatay saameyn badan uu ku yeeshay wixii iman jiray safaradii waa hakadeen. waxa dareemi kartaa hadda meesha aan joogno inay wixii yaalay iska sii dhamaanayaan. safar kalena uu adag yahay sidoo ku imaan lahaa maadaama uu balkii saameeyay Soomaaliya. runtiina waa mid si guud aan ula qabno Soomaaliya cudurkan jiritaankiisa laakiin haddana ganacsigii uu sii saameeyay. markii hore baa iyadoo dadkan shilin Soomaaliya aysan qaadanayno waqti hore saameyn ku yeeshay awalba lacagahan hawada la isticmaalay kaliya taasoo caqabada oo deegaanka ka haysatay haddana waxa ugu sii darsamay coronavirus oo saameyn badan ku yeeshay ganacsiga haddana biidnillah waa laga bixi doonaa laakiin haddana waa culays taagan oo markasta deegaanka ka muuqda oo saameyn ku yeeshay oo qofku soo yimaada uu ka dareemi karo maanta saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay. run ahaantii cudurku uu jira adduunka dhan uu saameeyay gaar ahaan anaga bariyaan waxaan moodaa si qaas ah inuu magaalada Cadaado uga sii dhex jiro laakiin markii laga tago dhinaca dhaqaalaha ama isku socodka magaalada iska yar maxaa yeelay qof kastaaba asaga shakisan cabsi qof leeyahay wala kaaga dhintay iyo qof asaga baqa umada isugu jiraan saas awgeed waxay sababtay in qof kasta qof kale uu ka shakisan yahay. wallahi way isbedeleen qaymuhu oo qof kasta cudurkan lama ganacsato ah ama xamalata inta uu saameeyay laakiin taas waxaan kala midna adduunweynaha uu cudurka hayo ama dadka Soomaaliyeed taas uu meel kasta ku hayo ayaan kala midnahay. wallahi xaaladda arwada hadda waa ujeeda adiga waddanka wax waa garanayaan laakiin ma aha sidii hore maadaama ilaa hadda aan la dareemi karin wax weyn oo la dhihi karo waxaana ummadda maartay meherada ma la soo galo laakiin waxaan dareemaynaa in uu qof kale ka shakisan yahay saas awgeed dhaqaaqa magaalada uu iska yaryahay. dalbaadka waxa iska bedelay xilliga hore adeeg markii Muqdisho laga dalbo waxay ku imaan jireen adeeg qiimo iska caadi ah level dhaxa laakiin maalmahan waxa dalbatid xitaa inkastoo aan bal helin laakiin intii yar oo imaado Muqdisho oo imaado culays qiimaheedu kor u sii kacay si ku soo gaalay Cadaado ay ku soo gaartana aad u adkaatay. ما شاء الله هذا أدوه وحال رجينا بلهنا وحي كدم بين حوجه إسبدل دعوه والدرمات وفرمة هذه مركز وحلاقي بين حوجه إسبدله لكن هذا حوجه ولي عقبة وحتاجنت هاي ورنك مقدش حقي كتاجنت أنت يا إمادان وإحنا سوق جارنا قالي إنه إمادان وقرش كود أدب وبديني هاي لكن وحي عصب هذا مجال السوق قال عن مقدش كإيماني أو يحكي إيماني عن قاب دبل ساس دراد مركو إحنا قلنا إن أيضا دبل أي كسعودان إحنا قلنا مركا هذا حارتشيننا إن وحسك بدير الدونان مرة عدد عقبة إسكهستي وقلمي ذو oo sababta waxa ka shaqeynaa EFC oo lacag kaash ka shaqeyn jireen in kasto hadeer markii wali caqabadii iska jirtay haddana caqabadan kale oo coronavirus iska imaadey ayadana Liban Cabdi Ciise Fantaasi gurbahinta Shabeelle magaalada Cadaado.